iska ilaali awrkaaga inaad ku xidhiidhiso qof adduunyada iyo aakhiraba khasaaray iyo ilbaxnimo kuu sheeganin arrin hamoodin isaga haddaba cararin ilaan halka uu ku socdaabuu kugula dhaadhacaya haddaad awrkaaga ku xidhiidhiso ka noocaas nimankaasi marka ay cabanayaan yaa laytana adacna allaha wa adacna arasuul adacnaa saadatana wa kubara mushkilatu daaca mushkiladda nimankii ku dhacday waxa weeyaan daacadii bay halkeedii la seegeen halkay ku habboonayd meelaan meeshii ahayn bay dhigan daacaduna waa maxay waa in cid laga tala qaato sharciga laga qaato oo amarka laga qaato oo iyada laga dambeeyo ilaahay rasuulkay taasay ama alkitaabu wa sunna kitaabka iyo sunnada siyaadada iyo sareynta lahaa oo cid walba ka sareeyay labadii markay weydaarteen qaanuun iyo qofof waxood raaceen maanta ayay eedeen ilaahay la hortaagay marka qabla fawatilawaan inta waqtigu tegin buu ilaahay dadkii aakhira cabanaya oo ka calan calaya wixii ay eedeen ayuu maanta ilaahay in hor keenaya waxa lagu jabaa waa ilaahay rasuulka la weydaarto oo shariicada islaamka iyo diinta la weydaarto oo dad kale lagu doorsado la adeecay iska daaya galba eedo halka ka qaylinaya sidaan idinkana qaylada ay waxaas idinku dhicin ilaahay rasuulka adeeca marka mushkiladda musiibada ku dhacday waa daacadii oo halkeedii ay la seegeen adiicu allaha wa adiicu rasuul nasiib wanaagna dee ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii ku hadlayna waynu haynaa sidiisiya xadiisii saxiixana waynu haynaa ee nabiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ummaddu la hadlaa wuxuu laa takuunu imaca ha noqonina dad iska nacamlayaala nacamle nin weyne waa musiibo oo dadku hadday wanaagsanaadaanna waanu hagaagi hadday xumaadaanna waanu xumaan waxaa hala sharimin min nabi nabi calayhi salaatu wasalaam caqligaaga cid lama amaahiyo cid inay kaa dhex hadashana ma aha ood hebelle iyo hadalladood iska soo xambaarato niman kala eeday waayo waxay leeyihiin ilaahay oo kuwaasaan dee daba cararnay oo naga dhex haddi jiray ilaahay oo bal maanta iyaga ku reeb likulli dicfun buu ilaahay leeyahay mid walba waanu labalaabaya kii la duufsaday kii wax duufsaday labadaba marka qofka muuminka caqligiisa iyo cilmigiisa ayaa uu ku socdaa